lacag sidaas oo kale ahi inta badan ma dhacdo. waa la maqlaa dee lacag baa waa la keenaa, laakiin qofkii dee uu si kale inta u keena aan la arag ama aan la sheegin, dadku dee waa camal la badan yihiin. laakiin lacagtaas oo la arkay oo nimankii nabadgelyada iyo qabteen iyo qolada kasoo horjeeda waxisdabamarinta la qabtay, mana ay ahayn in la keeno meeshii ay lahayd oo inay soo marto ay ahayd baa haddaan maqlay in lagu shubay. aad baa looga taxadiray sidaan maqlay. laakiin qolada wadatay dee diyaarad baa keentay, laakiin safiirka imaaraadka oo Soomaaliya iyo dhalinyarada xafiiska ka shaqeysa waxaan maqalnay meesha ku sugahayay lacagta. dhalinyaro xafiiskee ka shaqeysa marka? waa marka imaaraadka oo diblomaasiyiin sheegtay oo la soo baxay oo jeclaystay inay waxay yidhaahdeen diblomaasiyiin baanu lacagta waa qaadanaynaa, laakiin ma ay suurto gelin. waayo dee waxa diblomaasiyiintu qaataan lacag cad oo kaash oo dal la keenay oo aan la caddayn, aan declaration loo samayni dee ma dhacdo inta badan. dee dalalkuna ma yeelaan cadadaa badan iska daaya. xataa midda yar baa la sheegaayo dadku waxna warqada foomka oo dadka diyaaradda lagu siiyay waxna ku buuxiyaan. dawlada aan qorina waa jiraan. hadda imaaraadka oo kale ma qoraan foomka, ma laha. markaan tagno kuma weydiinayaan, laakiin de wixii laga shakiyo waxay marinahayaan meesha layska arko computerkay marinayaan. sidaas waxay iska eegaan qaadka oo kale iyo waxyaabo kaloo kontrabana. haddii wax laga shakiyo qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu markaa laga shakiyo la noqdo oo meeshii uu kala yimid uu dib ugula noqdo markaas intaysan soo gaarin xuduudka Soomaaliya. waad ogtahay gagida diyaaraduhu waxaa weeye meel uun hadee adduunka ka dhaxayso oo aadan adigu international oo qofku hadduu yimaado aadan oo dee iskana tegi karo kuna soo aadi karo. laakiin mar hadday soo gaarto inta xuduudka aad u leedahay iyo wixii aan la sheegin waa kontraband. middaa badan iska day. hataa hadday yar tahay oo la weydiiyo oo qofku sheegi waayo caddayn waayo waa wax aan jirin weeye. waayo weliba hadda maanta waad ogtahayo money laundering waxaan ay ku sheegaan gaaladu iyo af ingiriiska lagu sheego iyo waxaasaa laga baqahayaa. marka nasiib darray ahayd inaysan ayagu waxaa la arka aysan ama sidaa yeeli jirin awal oo aysan hadda markii ugu horreysay un la ogaaday ama ay gafeen baa dhici karta. laakiin ayaga waxaa u banaanayd inay dib ula noqdaan. dib way la noqon karaan sida qaynuunka diblomaasiyadda sheegaysa. waan gartay. marka bal waxaad iga warantaa, dadka qaar waxay leeyihiin Soomaaliya waxay ku gaftay sharciga caalamiga ah oo ambaasadorada ama safaaradaha ama diblomaasiyiinta caalamku lacagaha ay wataan iyadoon la baadhin oo ay siday u wataan alaabahooday kala gudbi karaan xuduudaha oo sharciyada ogol. dadka qaarna waxay leeyihiin Soomaaliya lagu soo xadgudbay, lacagaan la ogeysiin, wax loo wadana aan la aqoon oo cadadka leeg baa wadanka lala soo galay bilaa ogeysiin. bal arrimahaasi labada fikradood maxaad adigu kaga jawaabi lahayd? midda dambe aad sheegtay baa saxa. dal haddaa lacag la keenayo waa in la caddeeyaa waxa ay tahay oo laga sii hadla oo lasii sheegaa. hadda middaan waaba lacag cadad badan oo de shakigeeday leedahay oo de waa wax aan hadda marka horeba malaha aan la malaynayn. laakiin xataa hadday yar tahay dalka aad joogtaanba ka soo qaade $10,000 baan la ogolayn wax ka badan in qofna uu la galo oo iyadana uu de ku qorahayo caddaynahayo oo